qaybgalayaasha dhammaan baarlamaanka senator Zamzam iyo biyaaska xafiiska prime ministerka Axmed Nuur Maxamed iyo professorada Yahya Caamil iyo Xasan Sheekh. barnaamijkan wuxuu galay maalintiisii labaad. barnaamijku waa dood wadaag, waa dood cilmiyeed waaye, mana rabno inuu maxay ahayd waa shalayna waa ka afeeftay, maantana waa ka afeefanayaa. xarunta cilmi-baarista iyo horumarinta aadanaha waa xarun u taagan inay maxay ahayd human development-ga ka shaqeyso. human development wax looga shaqeeyaa waxay tahay ayadoo la ictimaadayo oo la ogol yahay kala duwanaanshaha aidiyooyinka, haddana waa in la ixtiraamaa akhlaaqiyaadka iyo maxaa la yidhahdaa personality-ga dadka. sidaa daraaddeed mar kale waan soo dhaweynayaa madaxda, waxaan leeyahay ku soo dhawaada. banalkan waa banalkii labaad. waxaan rabnaa in looga hadlo banalka iyadoo mawduuca guud yahay saameynta uu ku leeyahay safmarka coronavirus. maxay ahayd ma ku yeelan karaa mase ma ku yeelan karo, waa another debate waaye, laakiin preparationkii isu diyaarintii dhamaystirkii shuruuciyada iyo wixii looga baahnaa doorasho ma ku yeelan karaa. taasaan rabnaa inaan ka hadalno. qof walbaana wuxuu ka hadlayaa waxa uu aqoonta u leeyahay. waxaan rajaynayaa kasoo qaybgalayaasha inaan usoo xidhnay dadkii mudnaay inay dhegaystaan, ayagana ay maxay aragtidooda ku biiriyaan. taas waa aragtida koowaad. shalayna waa sheegay nebi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq. akhlaaqda wanaagsan aan ku dadaalno. dadka baanalka fadhiyana akhlaaqda ha ku dadaalaan inay ixtiraamaan dadka kale ka aragtida duwan, kuwa su-aalaha weydiinayaan ayagana inay ixtiraamaan madaxdooda. meeshaan waxaa xarun cilmi baaris, waxaan analyse ka samayn doonaa, waxaa lala wadaagi doonaa maxaa la yidhahdaa hay-ada caalamiya iyo dadka ay qusayso o dhan ay dowladda ugu horeyso. waxaan rabnaa marka waxa kasoo baxay inaysan noqon dhaliil iyo isfar isku taagtaaga inaysan noqonin. waa mahadsanta inaan mahad celiyo tiimka maaragtay noocyada kala duwan lahoo bulshada ka socdo barnaamijka nagala qayb qaadanayo fadhiyo. sidoo kale ka qaybgalayaasheena oo professor Rada Yaxya iyo professor Xasan iyo maaragtay iyo permanent secretary prime minister xafiiskiisa. marka labaad waxaan rabaa in aad ugu mahad celiyo oo aad u dhiirigeliyo oo aad u soo dhaweeyo centerkan oo maaragtay oo cilmi baarista oo la sameeyay oo aad wadanka xilligan oo ugu baahan yahay, dhalinyarada Soomaaliyeed wax baratay ay ugu baahan yihiin, oo maaragtay la rabo dhalinyarada Soomaaliyeed juhdigooda iyo aqoontooda in la jiheeyo oo loo jiheeyo inay wax qoraan, wax iqtiraacaan, maaragtay aad ay u focus gareeyaan, ay ka baxaan hadal kaliya inuusan ku ekaanin waxqabadkooda ama dadaalkooda. waa maaragtay aad u soo dhaweynaa. sidoo kaleeto maaragtay barnaamijka maanta oo ay ku soo bandhigeen waa aad iyo aad barnaamij xiiso u leh, barnaamij baahidiisa ay hadda ay taagan tahay, ayna muhiim tahay shacabka Soomaaliyeed in oo lagu wargeliyo, lagala doodo, laga ra'yi aruuriyo, maaragtay war waxgal ahna laga soo saaro ay muhiim u tahay. aadaan usoo dhaweynaya, aadaan u mahadsantihiin. machadka iyo intii qaban qaadisay akhyaarta sharafta leh ee kasoo qayb gashay boqolkiiba boqol baan idinna mahad celinaynaa, idin salaamayna. professorada professor Yaxya iyo Xasan iyo senatarada iyo walaalkeena noo hawadinayay panelkan khayr allah idin siiyo dhammaantiin, aad baad u salaamantihiin. gunaanadkan waxaan odhan lahaa way mudan tahay luul iyo tiimka la shaqeeyay iyo macadkuba in la dhiirigeliyo dhalinyaradu in ay inta isqaanto ciddii ay isu keeni karti iyo shaqadii ay qaban kartaba qabtaan. waa waxaan ku garab taagannahay aad iyo aadna u qiimaysan hore u socda. Soomaali haddaan nahay in badan baynu dhib ku soo jirnay. saa la socotaan xornimada Soomaaliyeed way 60 jirsan doontaa maalin dhow. 30 sano ku dhawaadna burbur dalku galay, 30 sano ku dhawaadna wuu dhisnaa. aan kuna ducaysano una diyaar garowno kana shaqeyno at least 30 sano ee soo socotay in uu dalku inta dib u dhismo uu qeybkii gaadho. COVID-19 aan uga faa'iideysano chance aan dib ugu dhisno bahda caafimaadka iyo isbitaalada dalka, aan u isticmaalno inuu noqdo cudur la mideeyey ummadda Soomaaliyeed ay mid ku noqoto oo aanay nafta badbaadinteedu geli karin siyaasad.
aan wax ka baranno oo waxa ugu horreeyay aan baranayno ha noqdo in aynu isku tashan karno wax fara badanna qabsan karno keligeen inaynu ka faa'iideysan karno digital worldiga ama fogaan aragga iyo wada shaqaynta isagoon la isla joogin oo wada shaqayn karo aan gudbinno fariimaha ah in uu dhaqankeenu xadaari noqdo oo dhibaatooyinka adduunka ka imaanaya si aan ula falgeli lahayn aan aqoon ku darno waa wax dadkeena iyo dalkeena u dan ah aada iyo aad baad u mahadsantihiin inaad jaaniskan na siiseen inaad na dhegeystaan oon idiin nimaadno idinkala qayb qaadano sessionkan khayr baan idin rajeynaynaa maalin wanaagsan wabillahi tawfiiq u mahad celinaa cidda soo qabanqaabisay inta ka soo qayb gashay iyo kuu sheekeynayo aad dhegeysateen intaba cudurkan coroonaha waa cudur la yaqaan cudurrada adduunyada ka jiro kamid ah ummaddaasaan daawadiisa iyo dabiibkiisa la qabnaa waxay soo saaraan annaga iyo dowladda waxaa noo dhexeeya baarlamaan soo maa dowladda yaa dhala baarlamankaa dhale anaguna baarlamankaa wakiilana labada aqal laftooda hadday coroono cusub naqdaan ka warramo maxaa lagu daaweynaa it could be haddaan cuduraa ka fikira corona naqan karaa laftooda waa talaadad waa la warsado corona waxay ku dilayaan corona soo maa iyaga balaa u duceyna inay corona nagu naqan oo jiradooda dowladdana ayna ku daaran shacabna ayna ku daaran tan kale haddii wuxuu sii dheeraadaan laguma shaqayn karo fogaan xiriirin wax badan haddaan beer tacbay adiga fogaan baan ku tacbi karaa haddii duqdaad ina uur yeelata aad rabto fogaan baan ku yeelana waxaa muddada gaaban ma sii socon doonaa geedka saka lagu xiraa ma sii soconaya alternative-ka aan ka fikirno baarlamaan waadna coronaha nagu naqano cusub kan hadda ummaddaaba la qabnaa waa idin salaamo